halkan ku muuqata waa xaafad Islii waxa ku muuqdana waa isbitaalka Bilaal qalqigii ugu badnaa Soomaalida ku nool xaafad Islii barkabar ayaa caawa halkan isugu yimid xilli roobaad qabowguna badan yahay haddana wixii halkan ka dhacay kaliya caawa waxaan ku tilmaami karaa musiibo waa dhacdo qaraacan murugo uur ku taalo walwal iyo walbaar xambaarsan waalidiinta Soomaaliyeed ee caruurta ku haysta guud ahaan magaalada Nairobi cabsi hor leh ku abuuri doonto gabar yar oo Soomaaliya oo da'deeda lagu sheegay 3 jir ilaa 4 jir waa saqiire ayaa gurigii ay ka dhalatay si arxan darro ah si sila si xariir ah ayaa loogu dhex kufsaday inta lagu masimina hadana nafta waxa looga siibay si sila iyo saxariir ah meedkeedina waxa lagu qariyay guriga ay degan yihiin reerkeeda undergroundkiisa waxa sida ragga gabadha yar kufsaday u soo hoosaasiyena waa naagtii shaqaalaha ee mushaarka ku qaadanaysay gabadha yar inay hayso gabadha yar ee 3 jirka ilaa 4 jirta da'deeda lagu qiyaasay hooyadeed iyo aabaheed guriga way ka maqnaayeen xilliga dhacdada qaraacan kale ee guriga ka dhaceysay naagtii shaqaalaha ahayd ee naxariista darneed ee qalbiga adkeedna rag ay u keentay inkastoo aan la sheegin ragga gabadha yar kufsaday tiradooda intee leegtahay inna lillahi wa inna ilayhi raaji'un waa walbo barya dhagahaynu waxay maqlayaan indhaheenu waxay arkayaan waxyaabo qof damiir damqada leh ee ku adag tahay dhageysigooda iyo daawashadoodaba in badan halkan waxaan kaga wacyigeliyay guud ahaan bulshooyinka Soomaaliyeed ee ku nool magaalada Nairobi naagaha shaqaalaha ah dhibaatooyinka kuwa qarsoon iyo kuwa muuqda tacadiyada ay kula kacaan familada Soomaaliyeed ee guryaha u jooga haddana lacagaha badan ka qaata maanta se sheekadii hore ayaaba iqarso qol gashay maanta gabar yar oo 3 jir ah naagtii looga tagay ayaa rag u soo ballamisay waa 3 jir maxaa laga raadinayaa kufsi iyo jirdil ilaa naftu silac iyo saxariir looga saaray dhacdadu waxay ka dhacday xaafadda Bangani waxa halka ka agdhaw waliba deris la ahaa rasmi rays oo nooga warbixin doonto sida ay wax u dhaceen iyo qaar kamid ah dadkii halkaasi goob jooga ka ahaaba bal sidee wax u dhaceen muuqaalada aan isla daawano inna lillahi wa inna ilayhi raaji'un caawa fal argagax la ayaa ka dhacay la keenay isbitaalka xaafadeena isbitaalka Bilaal waa u jeedin waxa la keenay ilmo yar oo 4 sano jiro oo la kufsaday kadibna dhintay xaafadu waxay ahayd falkan ka dhacay Bangani ilmaha waxa la sheegay inay haysan naag shaqaalaha waalidkeedna uu ka maqnaa fadlan gabar walba waxa uga digaya inay caruurteeda naag shaqaale uga taganin ilmahaaga ilaasho walaalay macaana ilmahan waa la dilay waa la kufsaday kadibna waxa lagu tuuray meedkooda undergroundka ama basementiga saa u taqaaniin ilmaha yaa naag antii looga taganin ilmaha qof weyn oo waalid joogo ilmaha la ilaaliyo Kenya hadee waxaan ka bilaabato waaba dhibaato abaa gabadh yar dabaqay deganeed ma ay wax yar ka weynteen ama way wala dhantaay hooyadii abeedna waa maqnaan kuleeyahay xilliga bixin iyo meeshii jireenbo shaqaalaha hayse shaqaalada disha lixaadka degan yihiin balkoonkooda meel ku toosan aan ugu tagnay cunto gabar dabaqana la degan aragtay qaylise waan wada cararnay waa ku istaagna meel kama jabnin dhiig kama soconin afkeeda kaliya abuurka socon cunta waxa ka socdo wali wax caana oo cad asanki afki imaadeen ana gabsaarteenta isqaawiyo ku dade mooto la fulo oo geey gadaal dambe waxa laga sheegay gabadha in tawaa la kufsada la leeyahay wallahi beerihad waa aad saa ku seexan lahaa ma garnaa walba ma xanuusnaaw وأنا شوق يو بلايس كيست عاوب يو درنتاي فانتين بكا دي الموت انك كوجوغان شقالada ala ilaaliyo dhagaleer u duleelaha ee dhagalaab u duleelaha mid ka leedahaba maanta ayaynu xaqiijin doonaa waxa la dibiga qal weeshu xaquusatay ma ahan markii ugu horeysay ee aynu maqalno waliba in dheehayno aynu saarno ilmo yar oo wax dambiye aanan gelin haddana naagaha guriga shaqaalaha ka ah si silac iyo saxariir ah ay ugu dilaan isla gurigii ay ku noolaayeen ayadana mushaarka ka qaadanaysa gabadha yar oo meed ah ayaa laga soo qaaday halka la yiraahdo basementiga amba undergroundka guriga waliba meel si gaar ah sida balkoon oo kale loogu qariyay
waxaa loola soo cararay isbitaalka Bilaal. waxaa la xaqiijiyay gabadha waa hore in naftu daysay. inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun. hooyada iyo aabihii dhalay gabadha yar caawa xanuun intee la eg ayay la nool yihiin. dhacdadan cid kasta oo ku nool dalkan Kenya ay qabsan kartaa. marka hore waxaa idinkaga wacyigelin jiray naagaha shaqaalaha ah ee guryaha la keensado inay siyaabo badan ay u dhibaateeyaan familada guriga kaga shaqeeyaan. qaarkood caruurta markii iskuulka ama dugsiga u wadayaan ayay wadada ku sii garaacaan ayaga oo yiraahdo haddaad sheegtana yaa weylak. marka oo gowracaya ilaa heer caruurtii ay ka cabsadaan in xataa dhibaatada naagta shaqaalaha ay u geysato ay waalidkooda la sheegi karin una sheergareyn karin. waxaynu aragnaa kuwa badan oo dhac u geystay kuwii guriga ay kaga shaqeynayeen. qaar dahabkii laga xada, qaar doolarkii laga xada, qaar kastii yareed ee isla iskuulaadka iyo dugsiyada iyo kirooyinka isaga bixiya la qaatay. qaar familkiiba sixir u maleega. hadda soo sheekada waa ka daro dibi dhal. waxay maraysaa cunugtii yareed ilmihii gurigii aad tiri hay ee aad mushaarka ku siinaysay in rag inta loo ballansado haddana kufsi jirdil naftan la dhaafsiiyo. heerkaas ay sheekadu maraysaa. haddaba su-aasha isweydiinta mudan ee waxay tahay ee muuqaaladan ka dhex dhuuxayay naagta ragga u ballamisay gacanta miyaa lagu dhigay? ilaa hadda lama oga. raggii kufsadayse laamaha amniga gacanta miyay ku dhigeen? taana qof xaqiijisay waan ka waay guud ahaan muuqaaladii aan idinla wadaagay. adiguse maanta wixii ka dambeeya maxaa kula gudboon? dhibaatada ugu weyn waxay tahay hooyada guriga joogta ilka iyo caraba isku dhow. war naagta shaqaalaha ee guriga kuu joogto haddii aad aragto in waajibaadkeeda shaqada aysan ka soo bixi karin ha ku qaylin ilaa adiga ma dhalin. ha canaanan qof weyn ee shaqadiisa shalay loo sheegay yaqaanay haddii maanta si kas ula kac ah aad u aragto inuusan qaban karin. ha la murmin, ha ku qaylin, ha canaanan. ilaa qof adiga kula eg waay. lacagtiisa farta ka saar. waxaad u geysaa waardiyaha ama maamulka guriga. waxaad tiraa naagtaan laga bilaabo maanta aniga mas-uul kama ihi, shaqadeedana waa ka fasaxay. gabdhaha Soomaalida dhibka ugu weyn waxay tahay naagtii shaqaalaha ahayd ee laga yaabo ayadaba inay ka weyn tahay ayay ku qaylinayaan, way iska canaanayaan. qalbi saaf, qalbi xabxab, daacadnimo way canaanay. saana tahay shaqadaad ma qabsanaysa naagtii saas ay caloosha ugu qabsanaysaa. cadownimo hor leh ayay ku qaadaysaa. laakiin caruurtaada ka go'an tahay. sidaa markaa u canaanato ayaa haddana ilmihii kaga tegaysaa. waxaad u imaanaysaa ayagoo la silciyey, la saxariiriyey, qaarkood si madaxa looga garaacaya. ilmaha 3 jirka iyo 2 jirka iyo ee qaarkood madaxu dhiig kaga furmaa. qaarkood dhagoolo ayay noqdaan. qaarkood way dhagajigaan. waalidkiina ma oga. markay imaanayaan waalidka xilli caruurtii la aamusiyey, la sasabay, dhinac hoos looga soo gaday. caruurtana ma sheegi karaan, maba xasuusan karaan. markaa caruurtaadii oo waxaad u imaanaysaa dhagajigaya oo leh war maxaa caruurta iga dhacay, dhegtiyaa maal ka socotaa, war maxaa iga dhacay, madaxiyaa xanuunay, maalaa ka timid, jugti gaartay, adiga war i wacaalumays. war caruurtaada gabar Soomaaliyeed oo wax kale kuu qabanaynin oo caruurtaas kuu haynayso kaliya ehelaad leeda dhulka kama dhalane. ninkaas ehelo leeyahay haddii wax kale la waayo midkood hala keeno. dad badan oo maanta waqti xaadirkan caawa daawanaya ee waalid ah, caruur u joogto, laag shaqaale u joogto, waxaa laga yaabaa sida muuqaal madadaalaha oo kale inay isaga daawanayaan. bal hal mar la dareen noqo hooyada iyo aabaha caawa gabadhooda oo 3 jir ah oo aan meel cidlaa geeri go'aana joogin gurigii ay ka dhalatay ku soo barbaartay. waa saqiir weli haddana inta lagu kufsaday, rag intay leegiin aan la ogeyn, haddana ay nafta kaga qaaday. dareenkaas maanta isbarbardhig adoo booskaas jooga xanuun intee leeg ayaa dareemi lahayd waalid. waxaa lagaa rabaa markaad adiga muuqaal daawanayso, dhibaato noocan oo kale aad daawanayso, bal qiyaas booskaas la isgeeyaa. caawa ha hooyan, ha harsan,
ayaa ku dhacaysa waalidkaas shalayna waa u dheeriya ilaahay waxaan ka baryaynaa hooyada iyo aabbaha dhalay gabadhaas yarta ah ee saqiirta sabiga ah ee dhibaatada intaa leeg loo geystay inuu ilaahay qalbigu qaboojiyo samir iyo iimaan buuxa uu ka siiyo بدل غير قبانا أوسي آمين حلي إسامة فرنت هاي أيا سورة قال مقال كأنه كسوغارو فضلا والدين تاس إينو أدعينو ومقال رنتي آدو حنون بدن دعاذانا إد كاستو أيا قبسان كرتا مقال كحيقاسه مكونو شاقود هاندل كان كين ميستعماشا سفاريكوم وليبا لعاكيت ساسادا لعاكتا إمباسادا caawa dhacdo ayaa gurigeeni ka dhacday waliba si lama filaan ah aniga iyo caasho guriga u joogno ayaa rag dadka dhaca waliba ku dhaca qaabka online-ka lacagahana kala baxa telefoonka ayaa fariintaas u soo diray fariintan aad arkaysiin kaliya wax badan lagaaga baahna si lagu dhaco halka ribalayga inaad taabato kadib biinka haga geliso lacag alaala lacagta kugu jirtana lagala baxo mar kale waxaynu arkaynaa in weli tuugadii ay soo laba kacleynayaan dhacdadaana cid kasta oo Soomaali oo muuqaalkan daawanayso inay qabsan karto fadlan bal muuqaalka marka hore aan si kadiisa u duuba Aisha markuu u soo dhacay message-ka ay tustay bal waxa ay muuqaalkan maadaama ay reality tahay sheekadu hebelay ku dhacday ee heblaay ku dhacday waa la soo gaarsiiyeen dhacdadu anagu maanta inuu taaganahay bal aynu uga faa'iideyno صاحبada qalbiga wanaagsan ee ku nool dalkan Kenya gobol degmo ilaa ituulo bal muuqaal yaran ka duubay marka hore ayran daawano asxaabay sheekadaas ayaa soo laba kacleysay mar kale inta badan waa idinkaga sheekeyn jiray laakiin maanta waxay si dhab u qabsatay Aisha sidaad aragtaana message-kaas ayaa u soo dhacay ee lagu leeyahay kaliya geli number sireedkaaga hadda halka ribalayga taabato bi numberkaaga gelinaysa wax alaala wixii lacag kugu jirtayna numberka oo 01 ka ah 01 01 66 81 63 ee si toos ah lacagtaada ugu dhacaysa marka waa inaad diidaa hadii kale waxa waaye lacagtaada cid ugu salaam waay odayaal waan filayaa ugu dambeyn muuqaalkaasna inaad si wacan u daawateen haddaba qof walba ku nool dalkan Kenya ee isticmaala Safaricom gaar ahaan dhanka lacag kaysashada M-Pesada dad waxaa jira inta badan saving ka dhigta ee aad kaga baqa in ay ayuutooyin galaan ganacsato badan ayaa halkaas saving ka dhigta waxaa jiro family badan oo ehelkooda ragooda dalka dibadiisa ku maqan haddana lacagaha biilasha ugu soo dira M-Pesa ahaan dhacdadan adiga ay ku qabsan kartaa fadlan hadii aad aragto fariin noocaas oo kala ah ha aqbalin number sireedka gabi ahaana ha isku gelin hadii kale wax alaala wixii halka lacag kugu jiray numberka aad gelisaaba ayaga ayaad u diraysaa fariinta ku soo dhaqanaysana waxay tahay akoonkaaga wax lacaga kugu ma jirto cid aad u qabsanayso ama cid lacagtaas kaaga soo celin karto malahan ileen adiga ayaaba u diray halkaas aan ku soo afmiray guud ahaan muuqaalka magacaygu waa Maxamed halkaad iga daawanaysaana waa Aisha Lifestyle hadii ay tahay booqashada ugu horeysay waxayna si xushmad ku dhaantay kaga codsanaa walaal inaad nagu soo biirtaan oo aad channelka subscribe noo saartaan sidoo kale waxayna si xushmad ku dhaantay kaga codsanayaa qof walba oo muuqaalkan daawanaya inuu laagta isharti soo kaandar si guud ahaan muuqaalkeena u gaaro bulshada Soomaaliyeed muuqaalkan mid lamid ah assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh Soomaaliya nabad Somaliya nabad